keliya su'aalaad maaha laakiin waxaan maanta soo jeedinayno waa waxyaabaha la rabo guddiga maaliyadda inuu ka faa'iideysto oo miisaaniyadda hoos ugu eego oo ay hubiyaan inay ku jiraan waxyaabahaas. qodobka aan dhihi lahaa in si fiican loo hubiyo waxaa ka baarlamaanku marar badan wuxuu ka hadlay uu soo jeediyey in ciidamada lacag kordhin loo sameeyo. waxaan rabaa marka guddiga inay hubiyaan go'aamadii hore loo gaadhay iyo ciidamada miisaaniyaddan cusub ee 2019 waxa ugu jira inay hubiyaan oo guddigu ay hubiyaan arrintaas. haddii wasiirku hadda noo sheegi karana uu noo sheego. qodobka labaad xildhibaanadii hore marar badan baa laga hadlay oo la soo jeediyey miisaaniyadda in lagu daro oo xuquuqdoodii la siiyo ayadana meesha ay miisaaniyaddan kaga jirto in guddigu hubiyo haddii wasaaraddu sharaxaadna siin kartana ayna siiso. qodobka kale waxa weeye 2019 miisaaniyaddan hadda xogta aan hayno waxaa naloo sheegay in aynan ku jirin sidii sanadkii hore oo kale wax shaqaale cusub oo la qorayo. arrintaa runtii waxaan dhihi lahaa xoogaa waa culays aad ah inkasta oo maxaanku idhaahdaa wasiirku noo sheegay inay jiraan shuruudo badan oo caalamku uu ku xidhayo laakiin de caalamku gacmaha inuu ka xidho maaragtay miisaaniyaddii soomaaliya iyo dowladdii soomaaliya oo shaqaale ku dari weyno ama kuwa volunteer oo wasaaradaha jooga ha noqdaan ama ha noqdaan dad cusuba hadda la qorayo dadka soomaaliyeed shaqo la-aan bay u dhimanayaan oo u baaba'ayaan. marka haddii ay run tahay inaan miisaaniyaddan ku jirin shaqaale cusub oo la qaadanayo waa runtii dhibaato. waxaanan codsan lahayn in qodobkaa wax laga bedelo haddii ay jirto. qodobka kale oo aan dhihi lahaa aad baan u danaynayna waxay tahay mudane wasiir waxaan maqalaa dhaqaalo fara badan oo dawladdu heshay ama midowda yurub ha ka hesho ama bangiga adduunka ha ka hesho ama maxaanku idhaahdaa IMF-ta ha ka hesho meelo badan lacaga ka yimaada. waxaan jeclaan lahayn mudane wasiir waa golihii baarlamaanka dadka halka fadhiya inay idaacadaha ka dhegaystaan keliya ma aha waa inay xog intaa ka badan hayaan. waxaan u baahannahay faahfaahin inaadna siisid deeqaha yimid dalka iyo sida loo keenay iyo waxa soo galay iyo meesha wax marayaan oo aan xog dhaba hayno oo aan ku dhisno. midda kale waddan soo korayaan nahay waa inaan ognahay wadamada hadda gacanna siiyey ee na caawiya iyo kuwa aan na caawinayn inaan kala naqaano waa inaan ognahay kuwii lacagtii ciidamada ay siinayeen gooyey oo naga joojiyey oo dabcan diidan inaan horay u soconno inaan ogaano marka waxaan u baahannahay mudane wasiir in faahfaahinna la siiyo oo ayna noqonin wuxuu wax iska duuduuban oo aan la garanaynin meesha ay ku socdaan. qodobka kale mudane wasiir miisaaniyadda aad sheegtaan inaad siisaan dowlad goboleedyada ayaguna ay reaction badan ka soo muujiyeen. waxaan rabnaa arrintaasna baarlamaanku annagaa matala dowlad goboleedyada dadka halkan fadhiya kulli dowlad goboleedyada ka wada yimaadeen iyo gobolka banaadir. waxaa la rabaa in la og yahay oo aan kula xisaabtami karayno ama aan ka jawaabi karayno shacabku marka aad adinka iyo qolada maamulada madaxda ka ah aada isku tuurtuurtaan waa inaan jawaab bixin karnaa oan ognahay waxa saxda iyo waxa qaladka. ayadana waxaan u baahannahay inaad naga siiso xog intaa ka badan. qodobka aan kusoo gabagabaynaya waxay tahay mudane guddoomiye inkastoo aanan weli detailska oo dhan wada helin laakiin bejka 30aad markaan eegay dowlad goboleedyada lacagaha la siiyo qaybta kore waad ku wada xusteen laakiin qaybta ku xigta oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaal meelaha ay wax siinayso 3 dowlad goboleed keliya la soo qoray. waa bejka 30aad haddaad haysataan ama 6.6 haddaad fiirisaan kor meesha numberka ah oo deeqaha dowladda ah. ma fahmin sababta ay uga maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland iyo Somaliland sababta ay uga maqan yihiin. dabcan Hirshabelle waa qoran tahay koonfur galbeed waa qoran tahay galmudugna waa qoran tahay. marka maxay uga maqan yihiin meeshaan ay uga maqan yihiin oo maarta loogu soo dari waayo budgetka wasaaradda arrimaha gudaha ku budget garaysan maqoonda gaar ah loo sameeyey oo meel kale wax ugu qoran yihiin mise kumaba jiraanba. qodobkaasna waa oran lahaa inaad maaragtay aad faahfaahin naga siisid ama guddigu uu hoos u eego. dabcan waxa aan hadda ka hadlayna waxaa tahay inuu guddigu eego oo uu kusoo daro miisaaniyadda. waa mahadsantiin.